waxaan rabaa Faadimo in aan wax ka wareysto anigoo ah xiriiriyaha guud ee Somali Community Foundation aan ka tirsanahay community-ga Xaaji Munji Shamcuun oo ku sugan Mareykanka gaar ahaan Atlanta Georgia aniga Naasirna isku meel aan joogno waxaan ka rabaa arimahaadii haddaan wax ka wareysto si toos ah waxaan rabaa Somali Community Foundation iyo dhamaan oo muslimiinta ku nool dunida daafeeda qof kasta oo muslim ah oo martan oo qeyrka jecel maxaad ka codsanaysaa hadda maxaa muhiim ku ah oo maadaama gabadhaada ay gubatay isbitaalna muddo 4 bilood 5 bilood aad kula jirtid halkaas Muqdisho la joogtid oo gaalkacina ka soo waday haddana oo lagu yiri martan Soomaaliya waxba ma laga qaban karo ilaa dibadda waa lagu yiri waraaqina lagu dhameeyay oo hadda maxaad u xayiran tahay ummadda muslimiinta maxaad ka codsanaysaa Somali Community Foundation waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo hay'adda waxaan ka codsanayaa walaalahayga inay gabadheeda dhakhtar igu qaadaan oo ay caawiyaan ay dhakhtar igu qaadaan si dhaqso leh ay ii caawiyaan oo dhakhtar igu qaadaan ay waayo dhibanaanahay ilmahaygii oo dhiban oo aan dul joogo 4 bilood oo haddana aan cagaheeda ku istaagi karin walaalahayga muslimiinta Soomaaliya muslimin oo dhanba Soomaali kaliya ma wixii muslim sheegta oo diinta islaamka ku xiran waxaan ka codsanayaa inay ilmaha yar oo saqiirka oo waxba galabsan inay si caawimaada dhakhtar igu qaadaan oo degdeg ah ka codsan lahaa oo waliba ka codsanayaa hadda isbitaalka yaa ku haya yaa wax ku caawiya isbitaalka Faadimo idna ima caawido dadka dariskayga gaalkacayaan la hadlaa $2 iyo saddeq marba waxaan sameeyaa xataa lacagtu inta iga goodo xambaaro intaan qaado 8 jir weeye intaan xambaaro iyadoo waliba dhaawaceedu ka damqanayo baan ilaa xambaaro waxaan ku geeyaa meelaha qaarkooda markaas haddana mootooyinka jidka maraya aan baryaan dhahay caawiya oo iqaxeeyo walaalayaal oo dhaweeya qaybna way ku dhaafaysaa qaybna way ku naxariisanaysaa way ku istaagaysaa mararka qaarkoodna saasaan sameeyaa marka kalena waxayo oo dadka muslimiinta aan dhawlaalay waxba maayo xamar baan joogaa inna kama aqaano qof $3 ii soo tuuro qof $2 ii soo tuuro baan ku joogaa xamar waayo hadda gabadha xanuunkeedii sidoo yahay marka adigu hadda sidoo ku arkaysa gabadha caafimaadkeedu say wax u maraya siday tahay hadda aniga hadda waxa weeye xanuunkeedu waayo uu soo badanayaa digfeer laftiisa dhakhtarka markaan tago uu igu qayliyaa wuxuu igu dhahaa gabadhan maxaad ka eeganaysaa dan iyo duruuf baa yahaysaan ku dhahaa anigu haddaan wax haysto ilmahayga dhibka kuma eegteen mar hore aan dhakhtar wanaagsan geyn lahaa laakiin waxa ay dhibaateynayaan waa wax la'aanta iyo waayaha iyo darteeda ay dhibaateynaysaa caanihii uma awoodo caani ii cabbi jirtay caanihii uma awoodo cunto calalisa markaan u geeyana iima cuni karto waa midda labaad ee kaliba haddana ka cabanaysaa oo kalida dabka waxa la yiri kalida gudaheedu gaaray kaadideeda xataa waxa weeye jaalle oo markay kaadido jaalle rib ah weeye oo waxa dhibka keenaya waa kalida dabku gaari laakiin wadan dhakhtar la hada tagtid Faadimo ay daba qabashay leedahay anigana waxa weeye hatta waxa weeye gacmo aan waxba hayn maxay sheegayaan qof waxba haysan horta muxuu sheegaa ku hadla waa saas aniga aan murugaysan oo oohinayaan dib u soo laabtaa mararka qaarkood xataa cunto ma cuno waayo markaan iyada arko dhibaatada ku sugan tahay baa aniga noloshayda ilaa waa oo aan waxba xataa cunin waayo kadib baan 2 ragco sunna intaan tukado waxaan dhahay ilaa wadaan ma hadda iskale adigana dhibka ii geystay haddana adayga dulqaadi kara ma sha Allah Faadimo hadda maxaa qorshaad ah oo hadda oo aad u xayirantahay inaad oo dibadda u qaadad oo inteeba oo markaas oo lacag ah oo aad u xayirantahay hadda oo lacagahana oo aad u xayirantahay isoo kala dhigdhig say kala yihiin waxaan u xayiranahay oo aan haddii aan helayo waxa weeye waraaqahaygaana haysta baasaboorkaygaana haysta warqadii caafimaadka oo dalka wax looga qaban waayo haysta
haddana ma awoodo fiisihii gabadha yarta inaan soo xiraysto iyada fiisaheeda gaarka u ama baasboorkeeda gaarka u waa $220 kan aniga aan wato oo kaxaynta hooyadana waa $220 mana awoodi karo totalis waa $440 mana awoodi karo okay sug had isug 440 waa visa waa miya marka waa fiisaha labadayada fiisahooda weeye okay maxaa kale dhiman markaas marka aan fiisaha xiraysto waan weydiiyay waxaan ku yiri fiisaha markaan xiraysto tigirka imisuu noqonayaa marka waxay dhaheen waxa weeye tigirka calaa qof $900 adigana $900 gabadha yarna $900 marka $1800 bay noqonaysaa mana awoodo waa iska aamusay markii saa la yiri aniga niyad jab baa igu dhacan waayo ma awoodaan waa gartay marka ma gabadha yarna waa $900 qofka weyna waa $900 miya marka waayo iyadu kursi bay ku fadhiisanaysaa waa $900 adna kursi baad ku fadhiisanaysaa waa $900 marka labadiina waa $1800 waay $440 waa visa waay marka waxay isku noqonaysaa totalka $2240 maahino $2240 waay miya markaas $2240 bay noqonaysaa oo jidmar iyo wax kale aan ku jirin jidmar kuma jiro hadda anigu aan joogo iyo meesha safaaradda la aadayo waa gaalkacyo ilaa iyo adigu waxa weeye adigu halkan aan joogo iyo magaalada geeskeeda kale aan joogaa meesha safaaradda laga xiraysanayana waa geeska kale $5 baa laygu geeyaa marka aan soo laabanayana $5 jidmar iyo waxaas iyo madna ma lahan waa gartay marka warka haddaan soo yareeyo hadda aan soo gebgebeeyo Faadimo oo adigoo ilan cunug baa gabar baa ka xanuunsan isbitaal kula jirta hadalkana in lagugu badi waa qof oo dhibana baa tahay oo cunug gabadhiisa xanuunsan hadal badan inaan kugu badiyo ma rabo ugu dambeyntii hadda waxaad u xayirantay $440 oo visa iyo $1800 oo ticketkii ah intaas waay maahino intaasaan u xayiray waaye marka walaalahaad adigoo martin oo codkaada Somali Community Foundation usoo dhiibaysad anigu waxaan ka tirsanahay xiriiryaha guud hay'adda Somali Community Foundation mas'uuliyiinteeda ayaan ka mid ahay runtii arrimahaadii waan la soconaa dhamaanteen waynu la soconaa marka waxaan taas oo marta bedelkeed aan ku weydiinay Soomaali weyn oo dhan iyo ummadda muslimiinta oo dhan maxaad ka codsanaysaa Soomaali weyn kaas oo dhan waxaan ka codsanayaa waayo hadda haddii xataa $240 inta la soo diro aan halkan intaan ka tago Soomaaliya oo tago Turkiga xataa cid igama horeyso dhakhtarka aan tagayana kharash iyo lacag buu rabaa mana awoodo waxaan ka codsanayaa dadka muslimiinta ama Soomaali weynta ama hay'adda waxaan ka codsanayaa dhammaantood in ilaahay ii sakhiro oo iga soo bixiyaan dhakhtarka iyo waxa weeye tegidda ilmaha yar intaba inay igu caawiyaan qofka jirna waxa ku yaalo oo arka dhibka inantayda yar haysta ama aniga ay haysta hooyo Soomaaliyeed aabba Soomaaliyeed dhibka ay haysta inuu ka damqado oo ay caawiyaan oo ilmahayga dhakhtar igu diraan igana kaxeeyaan meeshaas oo ay igeeyaan baan rabaa wadan dhakhtar laga ka codsanaya waa gartay waa yahay insha Allah fariintaadi waan gudbinayaa waxaan u bandhigayaa marta dhamaan waan sii share gareynaynaa dhamaan ummadda muslimiinta oo dhan dunida daafeeda meel kasta kala joogaan isla markaasna oo waa lagu soo xiriiri doonaa xiriirintana marta anagaaba ka mid nahay ku koob ah had iyo jeer marta kula soo xiriiri doonaa Somali Community Foundation wixii arrimahan oo ka soo baxana martan aniga dib ayaan kugu soo war celin doonaa insha Allah waan ku salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي قبل هذا كعافية إلهي كعافية
ummadda muslimiintana ilaahay oo marta kaaga soo qaado wixii oo marta adigu niyadaad ku jiro gabadhana ku caafimaado ilaahay kaaga soo qaado waan ku soo wada duceynayna anigoo xiriiryaha guud Somali Community Foundation oo ka socda TV Somali Community Foundation waa ku salaamaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي كعافية وبالله توفيق إلهي سبحانه وتعالى مرتن مسلمين تنا إلهي ولا حكاك صوصار